dadka aniga ila jeelka ahaa ee ku soo gaaray in sawiro darbiga la dheegsado. Sawirkaas waxaa ka mid ahaa sawir qaybta dambe faraska ah, madaxa horne qof dumar ah qurux badan oo timo dhaadheer leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Akhyaar sharafta leh kusoo dhawaada Alcadaala channel. Haddii nool joog jirto waa ku mahadsan tahay. Hadda ku cusub tahay fadlan subscribe, like, share, comment tabo inoo dhiirigelin. Waa walaalkina Aftax Alcadaala oo dib nagu soo laabtay. Akhyaar sharafta leh maanta wax reaction ah ma wado sababtoo ah maanta waxaan rabnaa in aan kala faa'iideysano. Waxaan rabaa in aan ka hadlo 10 qodob oo khuraafaad ah oo Soomaalida badankooda aaminsan. Kulligooda ma wada aaminsana laakiin badankooda ay aaminsan yihiin oo diinta wax sal iyo raad ah aan ku lahayn. Arrintan waxay igu dhalisay inaan ka soo hadlo. Waxaan arkay wiilan saaxiiban ahay guriga igu imaaday oo soo booqday. Markuu guriga soo galay wuxuu arkay kabaheygii mid kamid ah oo gadisan sida caadiga ahayd maansi kale oo gadisan. Waxay igu dhacay Aftax koobti toosi sababtoo ah ma wanaagsana. Dadka qaarkood waxay leeyihiin kabta inay sidaan ahaato waa laga fiican yahay. Waxyaalahaasna waxay ka mid yihiin khuraafaadka Soomaalida aaminsan badankooda. Ma ku dhigi karay kulligood laakiin badankooda. Waxaan rabaa in aan idin la wadaago 10 ka mid ah qodobadaas oo Soomaalida aaminsan. Qodobadaas waxaa ka mid ah 1. Kabaha isdul saaran. Kabaha isdul saaran Soomaalidu waxay aaminsan yihiin kabaha in la kala kor qaado. Inta badan waxay ku dhahaan kabaha markay isdul saaran yihiin waxay sheegaysaa inaad safraysid. Wariyaa safar u socdo kabahan waxay tusaale ka yihiin inuu qof safraayo. Taas waa khuraafaad number 1. Qodobka labaad waa qodobkii hadda aan ka soo hadlayay kabtiyo kor u gadisan ama kabtiyo gadisan. Yaraanteed waxaa maqli jiray kabtan toosi ilaahay caynaysa wal ciyaadu billah. Subhanallah. Taas ayadana waa khuraafaad oo inta badan Soomaalida ay aaminsan yihiin ilaa ay hadda qaar ka mid ah ay aaminsan yihiin. Qodobkan saddexaad waxaan rabaa inaan ku soo qaato salliga lagu dugto. Salliga ama sajaayada saa u taqaanid ee anaga salaada aan ku dukano. Sida shaashada idinka muuqato haddii salliga noocaan ah ugu dukatid waxay ku leeyihiin waa qalad sababtoo ah salliga sawirka ku yaala ama masaajidka ku yaala waa inaa u aadisaa dhanka qiblada. Waxaasna wax kama jiraan waa khuraafaad diinta saliiraad meel ugu taala ma lahan. Muhiimadu waa inaad qiblada u jeesataa. Salliga waa maradan dhanka rabtida u rogrogi kartaa. Qodobkeena afaraad waxaan rabaa inaan ku soo qaato mararka qaarkood waxaa arkaysaa adigoo indhaha ku bigbigleynaayo ama jirkaaga qayb ka mid ah oo ku gariirayo. Inta badan Soomaalida waxay dhahaan balaya igu soo socoto isha i gariirtay garabka i gariiray inta i gariirtay may waxaaseetin waa khuraafaad diinta islaamka wax sal iraad ah kuma lahan. Wax badan keeni karo sida inay hurdada kugu yar tahay inaad daroobo ama dooriya isticmaashid ama stress badan inuu kugu furan yahay sababo badan keeni kara jirka inuu gariiro. Qodobkeena shanaad waxaan rabaa inaan ku soo qaato hindishada ama hindisada kulli saa u taqaanid. Hindisada mararka qaarkood waxaa jirto adigoo rabtid inaad hindishtid oo baashi kugu leeb dhacday ama hindish weysid indhaha ku gaduutaan. Markaas waxay leeyihiin waa la xamanayaa warkiya la hayaa halay dhigo waa i wadatiin. Waxaasna diinta sal iraad kuma lahan. Qodobkii lixaad waxaan rabaa inaan ku soo qaato hamaamsiga. Qofka muslimka ah waxaa loo ogol yahay markuu hamaamsanayo inuu afka gacanta saaro. taas diinta way ogoshahay. laakiin markaa hamaamsatid inaad dhahdo a'uudu billah ama a'uudu billaysatid oo dhahdo a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. Inta badan Soomaalida markaa hamaamsano ereygaas ku dhawaaqnaa waana xaqiiqo waa isla aragnaa. laakiin midaas ayadana diinta meel ay kaga taalo ma lahan. laakiin waxaa la ogyahay hamaamsiga inuu shaydaanka imaaday oo lagu ogol yahay inaad gacanta afka saaratid. laakiin inaad a'uudu billaysatid diinta meel ay kaga qoran tahay ma lahan. qodobkeena toddobaad waxaan rabaa inaan ku soo qaato daacada. marka cuntada iska badisid qasab waa qof bini aadan aad tahay calooshaadu waxay ku sheegaysaa inaad dhergan tahay kadibna waa daacsanaysaa. markii aad daacsatid waxay dhahaan astaghfirullah alxamdulillah oo macnaheedu tahay si xuna wax uu cunayo ilaahay ii dambi dhaaf alxamdulillah ilaahay adan ku mahad celinaya. labadaasna midna diinta kuma ku soo aroorin. marka daacsatid waxba lama dhaho kaliya hawshaada la sii wataa. qodobkeena sideedaad ee khuraafaadka Soomaalida aaminsan tahay waxaa ka mid ah hunguriga ama cuna mareenka meeshan ragga
markay dhalinyarada ay yihiin 15 jir 16 jir 20 jir lafta meeshan ku taalo cunamareenka waxay aaminsan yihiin Soomaalida badankood nabiyullaahi aadam calayhi salaam markuu jannada ku jiray inuu tufaax loo diiday oo jannada ka goostay markuu cunay oo dhuuntu istaagtay saas darteed oo ragga oo dhan ay u leeyihiin cunamareenkaas ama laftaas ay ugu magacaabaan tufaaxatu aadam waxaasna waa iska khuraafaad inta badan Soomaalida waxaas way iska aaminsan yihiin laftaas rag iyo dumar way leeyihiin oo way ka siman yihiin laakiin inta badan waxaa muuqata ragga markay suuq qaangaarayaan 15 waxay ka bilowday ilaa 20 jirkoodii si wanaagsan oo muuqata loo arkaya qodob kale hadii igu soo dhacay oo khuraafaadkaas kamid ah hadii aad ila aragteen kulli dadka aniga ila jeelka ahaa ee ku soo gaaray in sawiro darbiga la dheegsado sawirkaas waxaa kamid ahaa sawir qaybta dambe faraska ah madaxa horne qof dumar ah qurux badan oo timo dhaadheer leh oo ugu magac dareen waraaqadii rasuulku lagu qaaday calayhi salaatu wasalaam waxaasna waa khuraafaad kadib markii baaritaan dheer ah aan sameeyay aniga shakhsi ahaan waxay ka imaadeen Allah qoladan shiicada ayaga waxaas magaalada ku faafinay intaan xasuusto Soomaali markaan joogay guriyo badan waa ku arkay inaan gurigeen ku arkay xitaa waa u maleeyaa laakiin si fiican ma xasuusto qaybta dambe waa faras qaybta horne halahan waa dumar qurux badan timo dhaadheer leh waliba madaxa sidii hindidoo kale meelahan dahab ma maqaan waxa madaxa ugu xiran tabeebo oo dahab camal ah markaas waxay far carabi waxay ku soo qoreen bureeqo waa bureeqada rasuulku lagu qaaday Israa wal Mi'raaj markii la dheelminayay oo samaawaadka loo qaaday waxaasna waa khuraafaad oo diinta meel loogu dhacayo maanta waxaan jeclaystay intaas inaan idin la wadaago haddii aad ka faa'iideysateen commentiga igu soo qora haddii waxyaalahaas aad maqasheen ama kuugu dhacay ama aad aragtay ama aad aaminsaneed maanta wixii ka dambeeya aaminin diinta meel ay kaga qoran tahay ma lahan akhyaar sharafta leh aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad u daawateen videoga oo la garaysan oo share garayseen insha Allah videoga xiga noo balana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh